بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعنا ونكسن dadka qiimaha badan leh meel kasta oo naga socotaan daafaha adduunka iyo dalka gudihiisa kuna soo dhawaada waraysi gaar oo aan la yeelanay ugaas Bashiir Cabdi Cabdilaahi oo kamid ah madax dhaqameedka reer Soomaaliland oo waqtigan ku sugan cariga Mareykanka. Ugaaska markii hore waxaan weydiinaynaa bal inuu sharax guud naga siiyo iyo sida uu arkayo waxa uu tala ka geysanayo doorashada Soomaaliland ayaa 13 November loo dareeraya. waa maxay fariinta aad u diraysaa ugaas shacbiga reer Soomaaliland ku soo dhawow TV qaranka? runtii waa nagno wala dogsoon yahay doorasho isku suuskan oo muddo badan la sugayo inuu caado ahay doorasho isku suuskan horna waanu soo qabanay imikana waa ogtiin oo dadku dad bisil weeyaan oo xagga siyaasadda iyo xagga doorashooyinka oo bislaaday Soomaaliland aad baa loogu bislaaday. waxaan ilaahay ka baryaynaa wadawadu baa ka dhow kulay wad baa ka dhow in ilaahay si maartay dee nabada oo xasiloon noogu qabsoonto ayaan ilaahay ka baryaynaa Allah subhanahu wa ta'ala isaga wuxuu noo saxo doona insha Allah bilaa kareem ilaahay baan isku xiranaa inagana nabada dan noogu jirtaa. markan Soomaaliland nahay dhibaatooyin badan baa jira hareeraha naga xiga wala eegaya sida wuxuu dhacayaan baa la eegayaa sida wuxuu qabsanay la eegayaa. marka waxaan ilaahay ka baryaa inuu ilaahay si dhib yar oo hufan inoogu qabsanto doorashadaas. waanan ku rajo weynahay kolleyba kuwaas ahaan inay dhacayso si fiican inoogu qabsoomayso ayaan ilaahay ka baryaynaa. waanan ku kalsoonahay insha Allah billahi kareem shacabka Soomaaliland oo iyagu xadaarad fog leh oo khibradda doorashooyinkana hore u soo maray imikana khibrad fiican leh bislaaday. rajo weyn waan ka qabaa in si fiican ilaahay nagu hufan ay kuyiga u galaan oo safka u galaan oo qof walba xusbigu jecel yahay oo jeclaayo dee maartay uu rabay codkiisa u siiyo ayaan ilaahay ka baryayaa. inagana dhibto wixii ka soo baxana in lagu qanco ayaan taana ku rajo weynahay oo dantaas danbay noogu jirtaa. adduunkuna waa ina eegayaa waa laynoo imanayaa waa laynoo fiirsanayaa ictiraaf baynu sugaynaa. marka inaynu iska cagcagayno dhowr iyo 30 sano dee maartay dee inta wax la soo dhisay iska cagcagayno oo iska baabiino laga qurux badan yahay. shacabkana waxaan kula talinayaa inay doorashadooda iyo dalkooda bay ilaashadaan doorashadana si fiican u dhiibaan. mudane ugaas Bashiir Cabdi Cabdilaahi ee doorasho ayaa ka dhacday waddanka aad ku nooshahay Mareykanka. doorashadaasi sidee u dhacday maxay ka baran karaan shacbiga reer Soomaaliland? maxaad arinta xog naga siin kartaa? runtii doorashada ka dhacday dee Mareykanka waa dawladaha waaweyn ee adduunka baaburiska dee adduunka ilaahay ka shako dee maaragtay wax lagu weydiiyo ama kaba taliyaba oo wada socotaanba laba xusbiba hadda tartanku ugu ahaa waa dimuqraadiga iyo republicanka. marka runtii dee waxaan filayaa inaga ictiraaf baynaan hayne laakiin xagga waxbarashada inaan dawlado badan oo Afrikaan oo ictiraafaya ka horeyno kuwa jiiraankeena iyo kuwa kale baynu ka horeyno oo runtii dee dhagaha lagu hayo leeyahay dadkani dee dhowrka doorasho qabteen Soomaaliland lagu qabtay. marka Soomaaliland risku kale waxa u baahan yihiin in la isku haneeyo waa inta unta naga maqanay. waad arkaysay gabadha markii dee laga helay markiiba dee way hadashay way qiratay inay ay ku feelgarowday oo dee ay ku guulaysan weyday. waxa kaloo qirtay inay maaragtay ay ogoshahay guusha laga helay. waa dal weyn oo dee maaragtay constitution iyo dee lebayn maaragtay shuruuc le maaragtay dee ku kala socdaan dadkani ku kala socdaan oo inagana kuleba alxamdulillah waxaan filayaa kule waxna waanu ku qaadan doonaa. waayo dee waddan waa laga fiican yahay qofku inuu yidhaha lagama helin haddii laga helo oo guddiga markaa dee iyagu hawsha wada ay soo saaraan markiiba waad arkayseen iyo sida quruxda badan eena waxba uga dhicin waddankaasoo dee aad arkaysaan oo dhowr ilaa 50 state ah oo doorashada muddo socotay muddo maalin kale may soconay muddo socotay. waxay socotay muddo dee lagu qiyaas karo in badan ayay socotay oo maalin walba la duubay maalin walba la gelay safka
marka waad arkaysaa dadkaas siday doorashada u dhiibayeen ee u dhiibanayeen ee codka u bixinayeen inagana waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan wax kaga dayano oo dowladaha waaweyn wax kaga dayano kale dowlado yar oo caalam saladka dee waa ka horeynaa bay la tahay oo buuq iyo qayle iyo waxaasay dee siiba afrikaanku ay bilaabaan iyo caalam saladku laakiin waxaan ilaahay ka baryaa inagana inaan ku dayano oo saddex inan baa inoo sharaxan saddex inan oo Somalilandera waa inama walaalo ilmaadeera waa inamadeenii waxaa ilaahay ka baryaynaa in dalkiiyo dadkaba u turaan oo kii laga helaa maaragtay uu ku qanco oo qofka qancana waa qani waa niyadda laga qancaa oo iimaanka laga qancaa inuu ku qanco qofkii laga helaa hadday xusbi xaakimka tahay hadday tahay labada xusbiya mucaaradka kolba kii soo baxa kii laga helaa inuu ku qancayo ilaahay ka baryaynaa taasaynu ku gaari karnaa horumarkii waxaynu doonayno iyo nolol fiican ku gaari karnaa waddan yaroo curdan oo weli aan العتراف لهينو دي سووا لا رفنا يا ظروفي سايون هاي مركا إن هوسلو إيجان في عن شعب كانوا هوسلو إيجان كنا ضيدان عالم كل حاجة دعاية ولي بانو كنت يعني تريدها واوين سيدو وكلا وضان مدن أوجاس بشير عبد الله وقدام بيوم محي فرين تاضو دريسا ururada iyo xisbiyada siyaasadda ku tartamaya ee ka qayb qaadanaya doorashada dalka ka qabsoomeysa runtii ururadu waa ururo siyaasiyiin shacabkuna de waa khayr siyaasaduna dee male saaxiib joogtaa oo laakiin waxaa leedahay maslaxad joogtaa marka waxa weeyaan iyaga waxaan leeyahay dee siyaasiyiinta tartanka ku jira waxaan leeyahay dee haloo tiro ummadda haloo tiro shacabka haloo tiro qax iyo buuq looma baahna ummadda in loo tiraa fiican oo hoos loo eego ina gurigiisa ma baabiiyo inaad gurigiisa ku baabiisaan maaragtay qof laga badiyey inuu ku baabiiyo ama qof waxwaaye inuu ku baabiiyo gurigiisii iyo dadkiisii inuu ku dagaalgeliyo ama ku baabiiyo waa laga qurux badan yahay iyaga waxaan leeyahay siyaasiyiinta dee dib u eego ummaddana matalaysaan dee rafaad ha u geysanina qax iyo dhibtoona ha u geysanina shacabkana waxaan leeyahay danta idinka idigu jirtaa waxa weeyaan nabad bay wax idigu jiraan nabadiina ilaashada nabadan afrikaanka inta badan haysan oo dowladeena jeerka ay naga waaweyne la ictiraafsan yahay ana haysan baan haysanaa nabadana quruxda iyo karaamada iyo sharafka ku jiraan oo qofka habeenkii waqtigu doono socon karaa oo runtii anigu hadda laba sano baan iga maqanay laakiin kumrar baan imaadaa nabad badan baan arkaa oo khayraad badan baan arkaa inaynu u soo jeedsano in khayraadka dhulkeena wax kala soo baxno iimaansanana inamadeenana si maartay xor oo xalaal ugu codayno oo kii helaabo oo kii kale aynu u hanayno oo inaan wax buuqa ka abuurin ayaa fiican waayo kii helaabo wuxuu noqonayaa hadduu madaxweyne yahay dee waa inankeeni madaxda inta badanna waxa weeyaan inaan dhowrnaa fiican ama mucaarida noqdo muxaafida noqdee inaan dhowrno fiican oo dee aynu weliba ilaalino aflagaadada iyo buuqa iyo qaylada ka ilaalino waa basharka dee haddii la qarqaraaco waxa weeyaan u damqanaya dee waxa weeyaan way dhaawacaysaa marka dhaawacaasina waddankunbu ayunbu ku soo noqonaya shacabka marka runtii waxaa leeyahay shacabkana shacab bisil baan ku ogahay oo aada u fiican oo karaamiyo sharaf leh igana mudan inay iyaguna ilaashadaan nabadooda ilaashadaan taasaa inaga naas nuuga nabad baa leh taa in ilaashanaa fiican khayrna waa rajeynaya insha allah inay guul ku dhamaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aada iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa ugaas bashiir cabdilaahi oo ka mid a madax dhaqameedka reer somalilan oo isagoo ku sugan cariga maraykanka wakhtigan khadka telefoonka noogu warramay ugaas aada iyo aad ayaad umahadsan tahay